kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada wararka gudaha shabakada Itaalmeediya qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah beelo deegaan galmudug oo wada qorshe ka dhan ah madaxweyne qorqoor iyo culays hadda soo wajahay maamulka gobolka Banaadir oo shaaciyay degmooyinka laga soo qaado weerarada hoobiyaasha ee lagu qaado qaybo kamid ah magaalada Muqdisho maxaa Ilhaan Cumar ku qasbay inay taageerto qorshaha ururka Yuhuudda ah ee wadaan khayre oo nasiib darro aan la aqbali karin ku tilmaamay arrin marar badan dhacday haddaba maxay tahay arrintaas buug lagu soo bandhigay qorshaha ciidanka Kenya uga baxayaan Soomaaliya Abiy Ahmed iyo Mooto iska kaashanaya qorshe cusub oo lagu soo celinayo midnimada Soomaaliya Ahmed Madoobe albaabada ka xirtay mucaaradka iyo madaxtooyada oo la go'doomiyay qodobada iyo qodobo kale aad ku daawan doontaan wararka gudaha ee maanta shabakada Itaalmeediya waa hagaageen daawadayaal aan ku bilaabay beelaha deegaan galmudug ayaa wada qorshe ka dhan ah madaxweyne qorqoor xilligaana waxaa wajahay culays aad u weyn wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegay in culays dhanka siyaasadda uu soo food saaray madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qorqoor qaar ka mid ah beelaha deegaan galmudug ayaa ka soo horjeestay qorshaha cusub ee madaxweyne qorqoor ay ku wajahan maamulkiisa iyagoona sheegay in xuquuqda qaar la duudsiiyay dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in madaxweyne qorqoor uu yahay mudane dhab ah oo ay ka tahay mideynta shacabka galmudug oo muddo kala qobqobna waxayna talaabooyinka ilaa hadda uu qaaday ay muujinayaan qorshihiisa cusub ee mideynta galmudug siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo jeeda galmudug ayaa u riyaaqaya dardarka cusub ee uu la soo baxay madaxweyne qorqoor waxayna durbadiiba bilaabeen inay taageeraan hadda waxaa u buuxsamay 100 maalin waxaana baraha bulshada lagu hadalhayaa waxqabadkiisa muddada uu xafiiska joogay dhinaca kale warar hoose ayaa waxay tilmaamayaan inuu aad u sii xumaanayo xiriirka dowladda dhexe iyo waliba madaxweyne qorqoor maadaama qorshayaal badan oo dowladda ay ka rabtay markii madaxweynenimada ee u sharxaysay galmudug inuusan hadda fulin garoonka diyaaradaha ay fariistaan ay ka digtay al-shabaab oo xarumo kale oo la weeraray wararka laga helay gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in diyaarado aan la aqoonsan halka laga leeyahay duqeymo ay ka geysteen saacadihii ugu dambeeyay deegaano ka tirsan gobolka sida wararka lagu helay duqeymaha ayaa waxaa laga fuliyay goobo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha magaalada Bu'aale oo la fahamsan yahay inay fariisin weyn ay ku leeyihiin al-shabaab oo xiriir dowlad leh urweynaha al-qaacida dhinaca kale deegaanada ka jira garoob sariire iyo arbaco ayaa la sheegay inay duqeymaha ka dhaceen waxaan la ogeyn ilaa hadda haddii duqeymahaasi ay khasaaro naf iyo maalba ay geysteen muddooyinkii dambe gobolada Jubbooyinka waxaa duqeymo dhanka cirka ka geysanaya ciidamada Mareykanka kuwaas oo caawimaad ka helaya ciidamada Kenya kuwa Soomaalida taliska Jubbaland iyo al-shabaab ayaa qudooda ayaan ka hadlin duqeymaha la sheegay inay ka dhaceen deegaanada dhaca Jubbada Dhexe waxayna arrintaasi ka soo aadaysay xilli al-shabaab dhowr dagaalamayaal looga dilay howlgal lagu fuliyay gobolka Shabeellada Hoose weli waxaad daawanaysaan wararka shabakada Itaalmeediya maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu shaaciyay degmooyinka laga soo qaado weerarada hoobiyaasha ee laga fuliyay qaybo kamid ah gudaha magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaca ka qaaday degmooyin ay rumaysan yihiin in laga soo tuuro hoobiyaasha lagu beegsado xarunta xalanaya garoonka diyaaradaha Aadan Cadde gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa waxa uu sheegay in degmooyinkaasi ay yihiin wadajir dharkeen iyo kaxda Tuulax ayaa waxa uu sheegay in dhowr jeer 3 degmo ee gobolka Banaadir laga soo tuuray hoobiyaal lagu weeraray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Muqdisho ayaa iminka ay wadaan howlgallo amnigooda lagu xaqiijinayo lagana hortagayo falalka amni darrada ee fuliyaan al-shabaab Tuulax ayaa hadalkiisa sheegay in xilli howlgal kormeer ah ay ku tageen degmooyinka 3 degmo ee wadajir dharkeen iyo kaxda ee magaalada Muqdisho inkastoo gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Tuulax uu sheegay in 3 degmo haddana mid ka mid ah weerarada hoobiyaal ee ugu dambeeyay waxaa lagu soo qaaday degmada Kaaraan sida ay xog gaar ahaan aan helnay ay sheegayso toddobaadkii dhawaa waxaa kordhay weerarada hoobiyaal al-shabaab ay ku soo beegsanayaan xarunta xalanaya garoonka Aadan Cadde iyadoo mararka qaar ee toddobaad gudihiis ay fuliyaan 2 ilaa 3 weerar oo dhanka hoobiyaha ah dhinaca kale Tuulax ayaa waxa ugu baaqay laamaha amniga Soomaaliya inay dardar geliyaan howlaha sugidda amniga isla markaana ay ka hortagaan cid kasta oo liddi ku ah amniga gobolka Banaadir
وهاكين داوديال ولي waxaa daawaneysaan wararka shabakada Itaal Media. Abiy Ahmed iyo Mooto ayaa iska kaashanaya qorshe cusub oo lagu soo celinayo midnimada Soomaali weyn. Major Robin oo ah aqoonyahan Mareykan ah oo inta badan u dooda madaxbannaanida Somaliland ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Danjira Donald Mooto ku eedeeyay inay wadaan qorshe ee midnimo qasab ah uga dhex sameynayaan dowladda federaalka Soomaaliya waliba maamulka Somaliland. Major Robin ayaa sheegay in qorshaha uu sheegay midnimada qasabka ah uu wado Danjira Mooto oo isagu kaashanaya wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ku tilmaamay hogaamiye aan waayo arag ahayn xilli uu muddooyinkii dambe wada qorshayaal dib uga furaya wada hadallada labada dhinac inkastoo wali hakad ay ku jiraan wada hadalladaasi. Aqoonyahankan u dhashay Mareykanka ayaa si weyn uga hor yimid hadalka dhawaan uu jeediyay Donald Mooto kaasi oo ku dalbanaya heshiis midnimo iyo in maamulada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya si wada jir ah u wada shaqeeyaan si loo gaaro guul wax ku ool ah. aqoonyahankan Mareykanka ayaa ku doodaya in aysan suurtagal ahayn midnimo dambe ee Somaliland iyo Soomaaliya oo dhex martay xilli uu ku doodayo inay xorriyadooda dib ugu soo laabteen muddo ku siman 30 sano walow ay helin aqoonsi caalami ah soo dhigay. arrintan waa isku day uu Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya iyo Mooto isaga oo kaashanaya wasaaraha Itoobiya aan waayi arag ka ahayn laakiin himilada badan ee Itoobiya uu ku doodayo in xal lagu soo rogo qadiyada maamulka Somaliland iyo Soomaaliya. Mooto waxa uu iska jeclaa karaa in uu shaqadiisa diblomaasiyadeed waanu aamini karaa in hogaamiyaasha Soomaalida ugu cawdaan in heshiis midnimo gaaraan inkastoo Washington taladu ku baahsan tahay dib u dhiska Soomaaliya israaca gobolku waxay ahaayeen mowduuc ugu muhiimsan ee shaqadiisa ayuu yiri Major Robin. وإنتاسي كدري وحاسدان أو كسكو مركي سومالي بربورتي 1999 maamulka Somaliland guul ay kor u soo kacday waxa ay soo jiidatay ganacsiga waxay dhistay dugsiyada heerkoodu aad u sareeyo waxa ayna qasabtay qordoorashooyin dimuqraadi oo lagu hubiyo qalabka sawirada isha wadaniyiinta Somaliland waxa ay jeclaan lahaay inay gacanta ku dhigaan talada Somaliland. si kastaba ha ahaatee dadka Somaliland intooda badani ma xiiseeyaan in naftooda ay raaciyaan uga dhigaan haldan uga musqulaan ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay. وهاكين داوديال ولي waxaa daawaneysaan wararka shabakada Itaal Media. Ilhaan Umar oo ku qasbatay inay taageerto qorshaha urur Yahuudi ah ayaa hadaba leeyahay maxaa keenay xilligan. Ilhaan Umar oo ka tirsan aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa wajahaysa cambaareen xoogan kadib markii ay saxiixday warqad maamulka Trump ku boorinaysa inuu kordhiyo cunaqabataynta hubka saaran Iran. warqadan oo aan haysan sharciyad dhaqangal ah waxa saxiixay in ka badan 380 xubnood aqalka Koongareeska ah. magaca Ilhaan ee warqada ku saxiixan waxa loo fahmay inay xilligan ka falaagooday dabaaqadii hore ee ahaa in la qaado cunaqabatayn ka dhan ah Iran. waxa caradani ka dhanka Ilhaan sii kordhiyay ayaa leeyahay warqadaha uu gadaal ka riixayo guddiga u doodo Yuhuudda ee loo yaqaano Albak amba ALBC ayna ku tarjumayso ajandihiisa sharciga dejinta. sidoo kalena warqadan soo qoray gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee Koongareeska kuwaas oo labaduba safka hore uga jira inay timaado siyaasadda dhanka Iran. waxaan u maleynayaa inay ogolaatay in la xisaabtamo dadkuna ay muujiyaan sida ay ugu niyad jabsan yihiin talaabada ay qaaday gaar ahaan kuwa naftooda ka hormariyay sanadkii hore taageeradooda ku bixiyay qarashkooda ayaa yiri Jen Shama oo ka tirsan ururka loo soo gaabiyo ADC. ra'iisul wasaare Khayre oo nasiib darro aan la aqbali karin ku tilmaamay arrin marar badan ka dhacday. ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiye kulan looga hadlay xaaladda bini'aadanimo ee xilligan ka jirta magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan iyo deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe ku fatahay webiga Shabeelle. shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka socday dalalka iyo hay'adaha deeqaha ee taageera Soomaaliya oo kamid ahaayeen Mareykanka, Jarmalka, Sweden, UK, Masar, Turkiga, Norway, Talyaaniga, Midowga Yurub, Amisom iyo Banki Adduunka. madaxweynaha Hirshabeelle oo shirka ka qayb galay ayaa faahfaahin uu kaga hadlay xaaladii ugu dambeeyay Hirshabeelle gaar ahaan dhulka uu maro webiga Shabeelle oo ay ugu horeyso magaalada Beledweyne. sidoo kalena madaxweyne Waare ayaa soo jeediyay talooyin ku aadan sida xal waara looga heli karo khataraha ku aadan fatahaada horle ee uu sameeyay webiga Shabeelle. ra'iisul wasaare Khayre ayaa kulankaasi ka hadlay waxa uu ku baaqay gurmad degdeg ah in laga gaaro dadka ku barakacay si looga hortago in xaaladdu ay ka sii darto. ra'iisul wasaaraha ayaa yiri dawladda oo dadaal
la dhacayso dhibaatada ka dhalatay cudurka coronaviruska ay haatan wajahaysa xaalad bini'aadanimo oo ka dhalatay webiga Shabeelle oo karkaarada jabsaday malaha qaar kasta oo baabi'iyay dhulbeereed guryo dumiyay ganacsiyo waaweyn sameeyay kumanaan dad ahna barakicay dadka beledweyne kuwa ku soo laabta sanad kasta khasaaraha nafeed iyo mid hantiyeed ayay geystaan ayuu yiri wasaare khayre nasiib darro ku tilmaamay in sanad kasta dadka Soomaaliyeed ay wajahaan dhibaatooyin la sii og yahay wuxuuna ka qayb galay shir uu sheegay in taageerada saaxiibada caalamku ee siiyeen Soomaaliya aan laga gaarin ujeedadii horumarineed ee laga lahaa inta dadka iyo maamulada biyaha xalka waara laga helayo. Kulankan ayaa lagu go'aamiyay in xal waara laga soo helo dhibaatada fatahaadaha iyo abaaraha lana sameeyo qorshe lagu maareynayo biyaha in loo gurmado dadka ka barakacay fatahaadaha webigu ka geystay magaalada Beledweyne iyo tuulooyinka hoostaga Jowhar. qorshe ay ciidanka Kenya uga baxayaan ayaa hadda la wadaa. Waxaa la soo bandhigay buug cusub oo lagu magac daray dagaal nabadeed military Kenya howlgal midowga Afrika ee Soomaaliya 2011 ilaa 2020 waxaana qoray sida lagu soo wariyay taliyihii hore ciidanka difaaca Kenya Samson Matwara. Buugan ayaa lagu qeexay qorshaha ciidamada Kenya ee kamid ah howlgalka midowga Afrika AMISOM uga baxayaan gudaha Soomaaliya. Wargeyska Daily Nation ayaa qiray in dhamaadka 2020 ay ka bixi doonaan sida goor lagu cadeeyay qorshaha kala guurka kadib 8 sano oo ay ciidamada Kenya howlgallo aan guulo badan laga gaarin ay ka wadeen gudaha Soomaaliya. Waxaa hadda bilaabanaya qorshe ay ku bixin lahaayeen sida uu baahiyay wargeyska shuruudaha ka bixitaanka AMISOM waxay abuuri doontaa dib u habeen lagu sameeyo ciidamada qaranka Soomaaliya kuwaas oo awood u siin doona inay sameeyaan howlgal ay nabad waarta uga dhaliyaan guud ahaan dalka. Sidoo kalena wargeysku waxa uu qiray in ay xigi doonto nabad iyo deganaansho ka dhalata deegaanada Jubbaland. taliyihii hore ciidanka Kenya ayaa waxa uu aaminsan yahay in bixitaanka gudaha Soomaaliya ay xaqiijin doonto in Soomaaliya cagaheeda isku taagto isla markaana laga dhaliyo deegaanada Jubbaland amni. Sidoo kalena wadooyinka loo maro xadka labada wadan waa Mandheeri Ceelwaaq iyo Kane Pony in ay noqdaan kuwa amni ah. weli arrimihii Jubbaland ayaa ku guda jirnay. Axmed Madoobe ayaa albaabada ka xirtay mucaaradka madaxtooyada ayaan la go'doomiyay. madaxweynaha Jubbaland Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada inay yimaadaan miiska wada hadalka si xal waara looga gaaro khilaafka jira. Axmed Madoobe ayaa sheegay in maamulka Jubbaland uusan hayn dowlad madax bannaan balse uu yahay dowlad goboleed xubin ka ah federaalka sida daraadeedna loo baahan yahay in wax kasta oo khilaaf ah jira in wada hadal lagu dhameeyo. Waxa uu sheegay in hadda kadib madaxtooyada uu isku soo xiray isla markaana uu joojinayo kulamada maadaama uu jira caabuq halis ah oo caafimaadka oo aad u sii faafaya deegaanadaasi. khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Jubbaland ayaa cirka isku sii shareeraya waxaana beesha caalamka ay ku baaqeen in kala aragti duwanaanshaha wada hadalada lagu dhameeyo. guud ahaan inta ayaan ku soo koobaya wararka gudaha ee shabakada Media.